iska waran nabad magacaaga magacayga waxaa waay Douglas laakiin Soomaalida Daawud baa leeyahay oo Daawud Soomaaliya aniga Axmed baa leeyahay Axmed Nuur Sheekh Axmed waxaan ku arkay xagee u aragtay Somali Health Board markay dadka isu keenayaan oo ay barnaamijkooda caafimaadka ay baarayaan adoo barakeynaya waan ku arkay videoga Somali TV waan ku farxay ما شاء الله Soomaaliya xagee ku baratay sifada meelo fara badan أنا dhalinyaro ah heerada qowti Koryoli sanadkii 18 aan ka bilaabay inaan ka shaqeynay oo aniga waan joogi jiray Koryoli guriga nafaqa waan dhisay waan dhisay oo kadibna waan nafaqeynay ururta iyo hooyooyinka waa 18 taa kadib waa jir ilaa 8 sano baan ka shaqeeyay macallin school baad ahayd waan gartay Sabunay secondary iyo Wajir high school okay kadibna Ethiopia jigjiga mashruuc waxbarashada dadka weyn waan maamuli jiray good haye kadib marka gobolkan aan ku koray markaan ka soo laabanay geeska Afrika waan la kulmay kumanyaal oo Soomaali oo inta degan kan maxaa waaye marka nin saaxiibkay oo u bilaabay mashruuc inuu ka keeno ana geel waayo aniga waan la yaabay dukaamada Soomaalida inta qof Soomaali oo ana geel كينيا ما نعرف مرتبان وشيء بالوحفيا مدام أنا جيل وعفيمات وصح وإن لكينه مقالنا مركز هذنا تذكر ويجرانيان وين عبان هذا ما ذاك كان أنا جيلك ما أنا يعني برنامج كان كيني لكن أنا ماما مولى مشروع أوه لكن أنا جيل ولا كينا مقالوا يلا مركز حتى جوري قال كيني كارا هدي قف كله كيني ليه حبد هدي دلبته guriga keenaya waa dalbanaya insha Allah waa dalbanaya anaga gela waa jecel waa soo koray Soomaaliga intee ku qaatay meeqa sano taqriiban meeqa sano well kois deetanki ilaa iyo hadda waan baranhay inta dadkaad ku dhex jirtaa waa Soomaaliya wax la dhameeyay ma dhameeyo lama dhameyn karo waad mahadsantihiin walaalayaal meel kasta oo adduunka ka joogtaan barada Daawud waa u jeedaan waa Mareykan laakiin wuxuu bartay gobolka Washington ma ku dhalatay adiga gobolka Washington ayuu ku dhashay waa magaalada hadda aan ku noolahay aan joogno maantana waa u jeedaan meel ka dhan soo dhaafay macaanihii geela ayuu gadaya ani geelo keena oo ka shaqeeya Soomaaliya wuxuu ka soo shaqeeyay qaybaheeda dhan taqriiban Qoryooley waa koonfurta Soomaaliya Muqdisho u dhowdahay wuxuu ka soo shaqeeyay Wajeer wuxuu ka soo shaqeeyay oo iyadu NFD iyo qaybta maartay Kenya wuxuu ka soo shaqeeyay Jigjiga qaybta Soomaali galbeed marka Soomaaligiina ilaa hadda waa u jeedaan waa wada halkaas waxa kaaga cadaanaysa qof walba goolka aad leedahay waad gaari doontaa Daawud naam sheekh dadka Soomaaliyeed waxa wadankan degan luqadda Soomaaliga way ku yaraatay marka Daawudna u jeeda af Soomaaliga soo baranaya marka arintan maxaa dadka Soomaalida ku dhihi lahayd maxaa macna fariin oo u diray ururtan haddaan weydiiyo magacaaga oo idhaahdo magaca wax yar baa garanaya laakiin haddaan idhaahdo wada surname way wada sheegayaan kulligood marka Soomaaliga hala barto luqadiina ninkan luqadda Soomaaliga ku hadlaya sidaas uu yaqaana haye su'aal ma weydiinaysan Soomaaliya yaa Soomaali ku weydiin kara su'aal magaciigu hawa Daawud Douglas ama Daawud adiguna magaca Najib haye Maxamed adigana magacaaga isaga weydii magacaaga meeqa sano jirta meeqa jirta adiga meeqa sano ya meeqa sano jirta ya toban meeqa jirta adiga adna meeqa sano هيا وما سنتهي داود برشا وناكسن داود أدبا وما سنتهي هيا